raggan ka tirsan ururka al-shabaab ee maanta dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Maxamed Samatar, Cabdinaasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Xaaji Buule. waxaana daqiiqado yar kadib xilligii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hoteelka Naasa Hablood laga soo qabtay guri ku yaala degmada Boondheere oo ay ku baxsadeen sida uu tilmaamayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Nuur Shuute. maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedeysanayaal Farxaan Maxamed Samatar oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Suhayb, labo Cabdinaasir Dhaqane Xasan oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Cabdixamiid Qoslaaye, saddex Abshir Maxamed Xaaji Buule oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaan Yaxye ay ka hor cadeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan